بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta halkan iga daawanayda waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. waxaan rajeynayaa sidaa u caafimaad qabo inaad u caafimaad qabtid. magacaygu waa Cabdimajid Axmed Abshir. janalka aad iga daawanaysid waa Cabdimajidkeena. maanta maxaan nii wadaa intaanan ka hadlin waxaan nii wado waxaan ka hadlayaa videogii ugu horreeyay aan soo geliyay janalkayga, kaasoo dhammaan asxaabta idinkaga mahadcelinayo sida aad uga falcelideen ama aad ka dhigteen videogaas. waxaan idinka mahadcelinayaa dhammaan asxaabtii share gareysay janalka, kuwii subscribe saaray, kuwii videoga daawaday. waxaan idinka helay badankiin dhiirigelin aad u weyn commentiyada oo ah sidaan oo kale, iyo dhanka facebooka isagana. aniga horta social mediaha applicationada badankood malaha ma isticmaalo. waxaan u badanahay oo aan si aad u isticmaalo applicationka aadka u isticmaalo waa facebook. waxa kaloo soo haro ma isticmaalo, sida Instagram ma isticmaalo, laakiin waxaan filayaa in aan insha Allah maadaama YouTube aan kasoo dhex muuqday, waxaan rajeynaa kuwa kalena ayagana inaan ku dari doono. kuwa kalena TikTokka, Snapchatka iyo Instagramka. niyaha waa isticmaalaysaa kobtaas gaaweyn aad gashanayda iska daa. niyo haddii aaba YouTube imaaday maxaa diidaa inaan kuwa kala dhex tagana? kuma diidaydo balse youtube-ka bahaya kuanta maxaa tiri ku soo celi? niyaha kan kastaa keelay balse kuwa kale waxba kama faa'iidaysid. orodayga tagniyo awalba waxaa qalad adoo hor fadhiga inaan video duubay. asxaabay marka sheekada koowaad aan idin hayo waxay noqonaydaa nin baa muxaadaro ka qayb galay. muxaadaradana waxay ka hadlaysay in xaaskaaga wanaajidid, macnaha reerka kuu dhisan aad ku dadaashid, in xaaskaaga markii ay wax kuu keento kale amaatid, waxyaabahaas ka hadlaya. marka ninkaana marka wuxuu ahaa nin aanan u nixin xaaskiisa. cuntada markii u keento kale waxaa waaye maanta dhan buuqaa furan, waa la isqorsiibaa, waxaa waaye laiskuma naxayo, marka laiskuma jixinjixayo. markii ay u keento kale maxaa la cuno, wuxuu dhahaa cunadan waa farxal oo kale, waa cuno farxala ii keentay, waxaana kusoo farxadata maxaa waaye, waa adiga hadal aan caadi ahayn mar walba waxaa waaye uma nixi jirin. marka muxaadaradan marka ka qayb galay oo kasoo laabtay muxaadarada, marka sheekha wuxuu dhahay, sheekhu wuxuu ku wacdinaya in xaaskaaga markii wax kuu keento kale ay dhahdid waa maasan tahay, cuno macaana idii kariday, cuno waxaa waaye waa gacan macaan tahay. waa ammaan badan kusoo dhiirigeliyey odayaasha ama dadka ragga reeraha leh ee muxaadaradas ka qayb galay. asaga markuu kasoo laabtay marka soo wacdigii si fiican soo qaatay oo soo fahmay, marka wuxuu imaaday xaafadiisa. markuu imaaday xaaskiisa waxay u keentay marka cunadii u keentay. way iska filanayday marka inuu wixiisa qiilihiisa bilaabayo, waa wax iska filanayday, waxay ka filanayday inuu macnaha caay iyo wixiisii inuu bilaabi doono, qubqacdiisii inuu wax qoorsiibkiisa bilaabayo. marka cunadii markuu cunay wuxuu yiri xabiibi oo ka bilaabo horbaasha xabiibi cuno macaanaa kariday, waa gacan macaan tahay, wixii lagu soo dhuro sidii u geli, cuno macaanaa kariday, qof macaanaa tahay. naagtan wayba yaabtaba, waryaa 25 sano isqabnay, weligaana ima oran waa gacan macaan tahay, waa cuno macaan tahay. maanta marka cidi dariska aan kasoo qaaday maad leedahay cuno macaanaa kariday, waa oranaa tag iyadoo waxay naqsanaysa carartaba naagtan. marka
hadal aadan weligaan inoo kale hal markaa soo fagtaa ilaa oo mid dahabi ha ahaadee marmarka qaar waxaa waaye caqaabtiisu leeyahay isagana. Ninkaasna waxaa waaye inuu hadalkaas sii baro maadaama nin adag uu yahay sida loo boos qaatana waa inuu fahmaa ahayd. Marka taas halkaas ay noogu eg tahay asxaabi. Marka sheekada koowaad ay maanta idiin haya halkaas ay noogu eg tahay. Sheekada labaad aan galno. Sheekada labaad marka ayadana maxay qusaydaa? Sheekada labaad horta waa sheeko aad iyo aad u qosol badan oo aad ka heli doontaan sidaan filayo. Sheekada marka waxay noqonaysaa sheeko ku saabsan reer Galmudug ama reer Galmudug. Dadka Galmudug waa taqaaniin, waa dad kaftan badan, waa dad macnaha qosolkooda haddii ay kula kaftamayaan ama haddii ay kuu shactireynayaan ay dad aad iyo aad kaga qoslinaya. Waana dad gob ah oo macnaha waa taqaaniin badankooda Soomaalida waa ka warqabtaa. Qofka reer Galmudugga markuu dhex taagan yahay bulsho waa ka dhex tilmaamaya kuwa kale. Waana qof gob ah, waana wax loo wada aaminsan yahay. Intaan sheekada gudaha u gelin kahor dhammaan wixii reer Galmudug waa idin salaamaa. Idaa kunta reer Galmudug, if you are reer Galmudug macnaha haddaad tahay videoga like ku qabo. Sheekadan waxay ku saabsan tahay naag Galmudug ah. Naagta reer Galmudugta waxay ahayd naag xaamila waaye. Curadkeedii ay macnaha caloosh ku siday. Marka isbitaalka loo soo qaaday. Isbitaalka marka waxaa u soo qaaday sodohdeeda iyo walaalaheed. Marka waxay keeneen isbitaalkii keeneen. Isbitaalka markay keeneen xoogaa xanuunkii ku sii siyaaday. Naagta waxay bilowday inay dhahdo lacala aabbiis kuyaalkan iga soo bixiya. Naagtii sodohdii in way aragtay way fiirday. Waa wareey sodohdii marka waxaa waa way yaabtay soo fiirdano. Sodohdii markay soo fiirday waxay taagan tahay naagtaas sodohdii ku jeedin. Wallaahi war lacala aabbiis kuyaalkan iga soo siibay sodohdii ma aqaani. Umulasadii ay imaatay. Umulasadii markay imaatay waxaa waaye qolkii la geliyay. Waxaa waaye cunug waa laga dhigay laga soo siibay. Marka markii laga dhigay waxay taagan tahay alxamdulillah mar dambe liguma ogo. Naagtu waxay taagan tahay midii oo umulasada. War waxaa wax loo baahan yahay maxaa la dhahaa war wallaahi inaan lagu ogeyn. 9 naagta ka maray. Waxaa la joogay sanad kadib la gaaray. Sanad kadib marka waxaa waaye iyadoo sidii oo kale xaamila isbitaalka la keenay. Umulasada yaab war adii sanadka hore dhaarinaysa soo matid. Hawa anigi soo adiga dhaarinayay waa maxay waxaan sanadkaana waxay taagan tahay wax loo baahan yahay hawsha la qabso. Macnaha waa wax loo baahan yahay hawsha la qabso umuliso. Marka reer Galmudugta ayaguna waa dad aan macnaha calooshooda wax aan ku qarin oo haddii waxa samaan iyo xumaan iyo saaxiib banaankii ugu keenayaan wax ka qarsanaya male. Reer Galmudug oo markay inta kooda salaama. Sheekooyinkan maanta halkaas inagu eg yihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Niyow mar dhow adoo way gashay aan ku weydiiyay meeqa abis ka isticmaashaa social media. meeqa abis kula badana ima keliya ka isticmaala. Imo keliya haa oo maxaa ka dhex sameeydaa marka? Laakiin niyow waxaan ku weydiiyay YouTube ma daawataa? kaas ayaan taan isku daya balse waxaan ku dhex arkay adoo lagu malayo qof ay jil lagu dhigan yahay oo kale. Waxaa waa saas yaa ilaahay. Subscribe ma nahad. maya baro laakiin hataan ku saara oo niyow ii share garay ima aad isticmaashan igu share garay.